xiisada u dhaxaysa dalka Hindiya iyo Pakistan ayaa saacadihii la soo dhaafay kor u sii kacaysa. xaaladan oo soo bilaabatay inay kor u kacdo tan iyo 2019 aynu gudagalnay habeennimadii xalay toole fiidnimadii ciidamada Hindiya ayaa bilaabay howlgal military oo lagu magacaabo Operation Sindoor iyadoo weeraradaasi 9 goobood ku yaala gudaha Pakistan iyo dhulka ay Pakistan xukunto ee Kashmir ay ka geysatay dawladda Hindiya iyadoo adeegsanaysa ciidamadeeda militariga. weeraradan ayaa lagu beegsaday goobo ay Hindiya ku sheegtay inay yihiin xarumo argagixiso oo la xiriira weeraradii 22 Abriil ee bishii dhaaftay laga geystay Pahalgam halkaas oo ay 26 qof ay ku naf waayeen. Hindiya waxay sheegtay in weeraradaasi ay ahaayeen kuwo si taxadar leh loo qorsheeyay iyadoo la iska ilaalinayo in la beegsado xarumaha militariga Pakistan si aan xaaladdu sii kordhin. dhanka kale Pakistan ayaa cambaaraysay weeraradaasi habeennimadii xalay toole ay Hindiya ka geysatay iyadoo ku tilmaantay falgal dagaal oo lagu qaaday shacabka Pakistan. dawladda Pakistan waxay sheegtay in weeraradaasi ay sababeen dhimashada ugu yaraan 3 qof oo ku jiro cunug yar iyo sidoo kale dhaawac in ka badan 10 qof. sidoo kale Pakistan ayaa sheegtay in ay soo riday 2 diyaaradood oo Hindiya ay leedahay inkastoo Hindiya aysan xaqiijin arrintaasi. weeraradaasi kadib labada dal ayaa qaaday tallaabooyin diblomaasiyad oo adag. Hindiya waxay joojisay heshiiskii biyaha Indus Water Treaty ee markaasi Pakistan ay la wadaagi jirtay waxayna xidhay xuduudaheeda ay la leedahay dalkaasi Pakistan. dhanka kale Pakistan ayaa joojisay heshiiskii Shimla Agreement waxayna xidhay hawada iyo ganacsiga ay la lahayd Hindiya. qaramada midoobay iyo dawlado kale ayaa ugu baaqay labada dal in ay isdejiyaan oo ay ka fogaadaan dagaal buuxa xaalad gaari karta. xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio ayaa ugu baaqay Hindiya iyo Pakistan in ay muujiyaan isxakamayn isagoo oo ka digay in xiisadana ay u horseedi karto dagaal weyn oo ka qarxa gudaha labada dal. xaaladda ayaa wali mid aad u kacsan iyadoo labada dal ay wadaan diyaar garow military. Pakistan ayaa sheegtay inay diyaar u tahay inay iska difaacdo weerarada kaga imanaya Hindiya. wixii wareer ka soo kordha halkan ayaad kala socon doontaan. Seteye Production 1.